madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay shaaca ka qaaday in qunsulka Itoobiya u fadhiyo Hargeysa dhawaan loo dalacsay safiir buuxa taasina ay ku timid iskaashiga haatan ka dhaxeeya Itoobiya iyo Somaliland. Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyay munaasabadda 18 May oo loo qabtay magaalada Hargeysa wuxuuna ku tilmaamay tallaabo hore loo qaaday. waad ogtiin shalay ambassadorkii Hargeysa joogay ee qunsulka ahaa waxaa laga dhigay safiir buuxa waa tallaabo horumarineed oo anagu mahadnaqnay Itoobiya ayuu yiri madaxweynaha Somaliland. sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday heshiiska badda ee la galeen xukuumadda Abiy Ahmed wuxuuna sheegay in wali halkiisii yahay in dhaqan doonaan dhawaan dhaweed waxa heshiis galay Somaliland iyo Itoobiya qaylo dheer bay ku kaceen. horta waxaan idin sheegayaa dalka Itoobiya oo aan xadad la leenahay waxay ku dhiiratay wixii adinka kuwa maagteen ayuu mar kale yiri madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. sidoo kale wuxuu tilmaamay in heshiiskaas uu la mid yahay heshiisyadii waaweyn sida daraadeedna ay labada dhinac qiimeynayaan kadibna degdeg loo fulinayo. heshiiskaas uu hirgalayaa dhawaan haddii alle idmo muddada ay qaataan heshiisyadii culculus ayuu sii raaciyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. waxa kale intaas ku daray in heshiiskan la horgeeyo doono golayaasha baarlamaanka Somaliland si ugu meelmariyaan loona dhaqan geliyo. ugu dambeyn wuxuu haasta ka xariiqay in heshiiskaas ay ku bedesheen aqoonsiga Somaliland Itoobiya ay noqonayso dalka koowaad ee ictiraaf siiya oo sida hadalka uu dhigay madaxweynaha Somaliland. heshiiskan ayaa dhacay bilowgii sanadkan wuxuuna sababsaday in safaaradaha ay kala qaataan Soomaaliya iyo Itoobiya.